danaynta Israa'iil ee Geeska Afrika ma ahan arrin hadda yimid hase yeeshee waxay aad u xoogaysatay wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar sanadkii 2023 xilligaas oo uu bilowday dagaalka iyaga iyo wax iska cabinta kadib bilowgii dagaalkan waxaa safka iyo furmaha dagaalka iska xaadiriyay kooxda Ansaarullah Xuutiyiinta Yemen kuwa oo si cad u sheegay inay garab istaagayaan wax iska cabinta iyo shacabka Falastiin kusoo biiritaanka dagaalka kooxda Ansaarullah Xuutiyiinta waxay cirka sii gelisay dagaalka Israa'iil iyo wax iska cabinta iyadoona u yeeshay jihooyin kale Xuutiyiinta marka laga yimaado weeraradooda Yemen ilaa Israa'iil haddana waxaa jiray inay jidgooyo iyo khalkhalgelin ku sameynayeen maraakiibta Israa'iil si kastaba sida ay qabaan falanqeeyaasha Israa'iil dagaalka ay ku wajahayso kooxda Xuutiyiinta misana ugu jawaabaysay weeraradooda dan dhinaca kale Israa'iil waxaa caqabad uu ka haystay weerarada argoosiga ku qaadayeen Yemen Xuutiyiinta caqabada hareysa weerarada argoosiga ayaa ahaa fogaanta masaafada u dhaxaysa Israa'iil iyo Yemen wax ku dhow 2,000 kiiloomitir sidaas darteed maadaama diyaaradahooda si ay u gaaraan bartilmaameedkooda ay ku qasbanaayeen inay masaafadaas 2,000 kiiloomitir jaraan haddana tani ayaa Israa'iil waxay ku noqotay caqabad joogto ah waxay falanqeeyaal kale iyana qabaan in aqoonsiga Israa'iil gobolka gobolka Soomaaliland macna ahaan loo fasiran karo inuu yahay in Israa'iil doonayso inay ka hortagto dhaqdhaqaaqa dawladaha Turkiga Qatar iyo Masar ee Soomaaliya iyadoona Iiraan ay soo galayso qaybaha dhexe marka loo eego qorshayaasha Israa'iil Geeska Afrika iyo Badda Cas kadib aqoonsiga Israa'iil Soomaaliland dalalka Masar Turkiga Sacuudiga waxay wadeen dadaalo looga hortagayo aqoonsiga Israa'iil si gaar ah dawladda Masar waxay dareemaysay halisyo ka dhalan kara in Israa'iil Soomaaliland joogitaan dhameystiran ku yeelato qadaraha Masar ka walwalsanta ayaa ah in looga soo dhaxduso afarta xuduudaheeda waxaana si gaar ah afarta loogu fiiqay xadka koonfureed Suudaan iyo dhinaca galbeed oo ay Liibiya ka xigto Suudaan dagaalada ka socda si gaar ah ay Masar u socota sababta ayaana ah in uu dhinacaan kaga imaan karo tahriibin hub iyo kooxo fulinaya qorshayaal banaanka ah oo amniga Masar lagu qalqalgeliyo dhinaca Liibiya iyana Masar waxay ku qasbaysaa inay il gaar ah ku hayso sababo la xiriira in generaalka xukuuma bariga dalka Liibiya lagu eedeeyo inuu xiriir gaar ah la leeyahay isbahaysiga ka shaqeynaya kala qaybinta iyo kala goynta Soomaaliya Suudaan iyo Yemen si kastaba dhaqdhaqaaqyada ay ka wada Israa'iil Geeska Afrika iyo aqoonsigeedii Soomaaliland waxa uu gilgilay dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed oo ay dalalka Turkiga Masar Qatar Sacuudiga ay ka wadeen Soomaaliya iyo Yemen Xuutiyiinta maalin kadib markii Israa'iil ku dhawaaqday aqoonsigii Soomaaliland waxay ka soo saartay war-saxaafadeed iyo fariin hanjabaad ay ka muuqatay oo ay u dirtay Soomaaliland ugu dambeyn kadib aqoonsigii Israa'iil Soomaaliland Soomaaliya ayaa golaha ammaanka ka dalbatay kulan degdeg ah oo looga arinsanayay aqoonsiga Soomaaliland kaasoo qabsoomay 29 bishii tagtay December sanadka dhamaaday ee 2025 waxaana kulankaas cambaarin dusha looga tuuray Israa'iil iyo inay faragelin iyo xadgudub u samaysay madaxbannaanida Soomaaliya